Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalinta aad lacag samayso ama go'aan dhaqaale qaadato, ma is weydiisay maxaa maskaxdaadu ka fikirayso? Maanta waxa aan ka hadlaynaa qunka caanka ah ee The Psychology of Money ee uu qoray Morgan Housel. Buuggani waxa uu ka hadlayaa sida aan u fahanno lacagta, u maamulno, iyo waxyaabaha saameeya go'aamadeenna dhaqaale. Maaha buug si uga hadlaya xisaabta ama maalgashiga, balse waxa uu xoogga saarayaa maskaxda dhaqanka bini'aadamka marka ay timaado lacagta. Aan si qoto dheer u eegno cashada muhiimka ah ee buugga uu na barayo. Qodobkeena koowaad, lacagtu ma ahan keliya xisaab ee waa dhaqan. Wuxuu leeyahay qoraagu, qof walba wuxuu lacag u isticmaalaa si ka duwan dadka kale. Buuggu waxa uu sharaxayaa in dhaqankaaga, khibradahaaga nolosha, iyo sida aad ku soo kortay ay saameyn weyn ku sameeyaan sida aad lacagta ku fahanto. Tusaale ahaan, qof soo maray waqti dhaqaale adag waxa uu aad ugu dhow yahay inuu lacagta kaysado, halka qof aan waqti adag ku korin uu kharash badan ku bixiyo waxyaabaha raaxada ah. Barashada Housel wuxuu leeyahay, lacag ma ahan waxa aad ka barato dugsiga sare ama jaamacad, waa sida aad noloshaada u aragtay dhaqaalaha iyo fursadaha. Marka habkaaga lacag maareynta wuxuu inta badan ku salaysan yahay wixii aad hore u soo aragtay. Qodobkeena labaad, dulqaadku waa furaha guusha maaliyadeed. Morgan Housel wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa muhiimadda sabirka iyo dulqaadka marka ay timaado lacag samaynta iyo maalgashiga. Lacag samayntu waa geedi socod aan degdeg ahayn. Tusaale ahaan, Warren Buffett wuxuu noqday mid ka mid ah dadka ugu qanisan adduunka, sababtoo ah wuxuu bilaabay maalgelinta isagoo yar, oo dulqaadkiisa ayaa ka dhigay inuu lacagtiisa kordhiyo sanado badan. Cashar muhiim ah, lacagtaadu kama korayso maalmo yar gudahood, laakiin waa inaad diyaar u noqoto inaad sugto. Wax kasta oo muhiim ah waxay u baahan yihiin waqti iyo dadaal. Qodobka saddexaad, khatarka, fahamka khataraha iyo maarayntooda. Housel waxa uu sheegay buugga in halista riskiga ay tahay lama huraan oo ka mid ah dhaqaalaha. Markasta oo aad go'aan dhaqaale qaadanayso, waa inaad is weydiiso, waa maxay halista go'aankan? Ma diyaar baan u ahay inaan qaato halistaas? Dad badan waxay lacagta ku lumiyaan sababtoo ah ma fahmaan khatarta ku jirta go'aanadooda, ama waxay qaataan khatar aan loo baahnayn. Talo, had iyo jeer ka fiirso waxa aad lumin karto iyo waxa aad ku heli karto ka hor intaadan lacag ku maalgelin. Qodobka shanaad, waqti ku bixi barashada maskaxdaada. Lacagta oo si wanaagsan loo maamulo waxay u baahan tahay inaad si fiican u barato maskaxdaada iyo sida aad go'aan u qaadato. Badanaa waxay saameyn ku yeelanayaan. Qodobka shanaad, waqti ku bixi barashada maskaxdaada. Lacagta oo si wanaagsan loo maamulo waxay u baahan tahay inaad si fiican u barato maskaxdaada iyo sida aad go'aan u qaadato. Badanaa dadku waxay sameeyaan khaladaad dhaqaale sababtoo ah waxa ay ku siirsan yihiin dareen, ma aha xog. Housel wuxuu yiraahdaa, qof caqli badan oo dareenkiisu liito waxa uu ka liitaa qof caadi ah oo dareenkiisu xooggan yahay. Talo, ka hor intaadan go'aan qaadan, iska hubi inaad xog fiican hayso. Naftaada weydii, go'aanka waxay ku kicinaya dareenkayga mise waa mid caqli ku dhisan. Gunaanad, buugga The Psychology of Money wuxuu inoo sheegayaa in lacagtu ay tahay wax badan oo ka badan xisaab iyo maalgelin. Waa maskax iyo dhaqan. Haddii aad rabto inaad noloshaada dhaqaale hagaajiso, waa inaad fahantaa maskaxdaada iyo sida ay u shaqayso. Marka lacag laga hadlayo, wadan xasuusnow in lacagtu aysan si toos ah ku siin farxad, balse ay ku siin karto xorriyad iyo xasillooni. Marka u maamul dhaqaalahaaga si caqli ah, adiga oo diiradda saaraya waqti dheer, dulqaad, iyo qorshe sax ah. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga. Waxaan rajaynaynaa in macluumaadkan uu kuu noqday mid faa'iido leh. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato buuggan, akhrintiisa waa mid runtii kuu horseedi doonta fahan qoto dheer oo dhaqaalahaaga ah.